marka sidaasaa lagu tacriifiyey zina waxaasaa la yidhaha shuruuddaas wixii oofsada ayaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa zina uu u yaqaanaa mar walbaba qofka zaaniga ah waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira uu ku ciqaabo waxaa ka mid a cumri degdega ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a in isaguna kamaa tadiinu tudaan siduu isaguna u zinaystay in ilaahay ku ciqaabayo ahalkiisa mid kaloo shaydaan in ilaahay isagana uu qoorta u geliyo oo ahalkiisa laga zinaysto asagana hadduu haweeney la qabo uu ka zinaysto isagana xaaskiisa in laga zinaysanayo gabar hadduu ka zinaysto la dhalay isagana gabadhiisii in laga zinaysanayo kamaa tadiinu tudaan sidaad u dhaqanto ayaa lagula dhaqmo cuquubaadka yacni lagu ciqaabayo adduunyada ayay ka mid tahay walidaalika waxau yihi nin shaacira ina الzinaa daynun fain aqradtahu kaana alwafaau min ahli beytika faclami ina الzinaa daynu wuxuu yihi zinadu daynay kugu tahay fain aqradtahu haddaad qof amaahiso kaana alwafaau min ahli beytika faclami waxaad ogaataa aalu beytkaaga in deynka laga jari doono ogow laasim waxaa waaye qofka hadduuba zaani yahay isagana adduunyada waxyaalaha uu ku ciqaabayo waxaa ka mid a in asagana ahalkiisii iyo qoyskiisii sidaasoo kale loo fadaraynayo gabdhaha kale siduu u fadareeyey oo cirdigoodii iyo uu ugu tuntay oo akhlaaqdoodii iyo mustaqbalkoodii uu u baabi'iyey sidaasoo kale asagana gabdhihiisa in loo gelayo ina الzinaa daynun fain aqradtahu kaana alwafaau min ahli beytika faclami ahlu beytkaaga ayaa laga jaray waxaa imaamu اlbazaar kitaabkiisa musnadka uu ku wariyey waina furuuja الzunaati latu'dii ahla الnaari binatni riixihaa inuu yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waina furuuja الzunaati kuwa zinaysta cawradooda latu'dii ahla الnaar binatni riixihaa wuxuu yihi nabigu salى اllahu عalayه wasalam ahlu naarkaa ku dhibtoonaya qarmuunka farjigooda malaxda iyo dhiigga ka qulqulaya dadkii kaleoo dembiyada kala galay oon zinada gelin oo ahlu naarka ahaa sankay ka qabsadaan oo waxay leeyihiin rabbiyow waxaan maxay tahay soo karaya waxaan naarta nagu dhibay oo cuquubadii iyo cadaabkiina haystaba nooga darnaaday muxuu yahay markaas waxaa la leeyahay waa furuuju zunaat waa dadkii zinaystay cawradoodii malaxda iyo dheecaanka ka shubmaya way qarmuunka ad arkaysaa marka waa cuquubada khaaska ah ee ilaahay subxaanahu watacaala aakhirana uu ku ciqaabayo adduunyadana in cumri degdeg lagu rido amraad iyo xanuunno aan la garanayn ayaa ilaahay ku sallidaa subxaanahu watacaala xanuunkan hadda adduunku uu daawo ula yahay la yidhaaho addaacuun almucaasir daacuunka casriga oo loo yaqaano aidiska loo yaqaano inta badan boqolkiiba 95 wuxuu ka dhashaa zinaduu ka dhashaa way dhici kartaa asbaab kale inuu qofku u qaado oo maalan qof yacni xanuunkan qabay oo viruskan qabay in maaragtaa maqas uu ku jartayo yacni dhididkiisa ama dhiiggiisa uu maqaska taabtay in asagana loogu jaro way dhici kartaa haddii ilaahay u qadaro laakiin taasina waxay ku xihan tahay maqaadiir ilaahay in ilaahay u qadaray subxaanahu watacaala way dhici kartaa haweeneydii yacni markay umulayso maqas lagu jaray haweeney kale oo xanuunkan aidiska qabta in iyadoo beri ah oon zinaysan oo waxyaalaha aan shaqo ku lahayn in si khalada maqaskan iyadana loogu jaro dhiiggii iyo dheecaankii isagoon laga gubin oo jeermiskii aan laga dilin in iyadana lagu jaro sidaa ay ku qaado waa suurtagal waxyaalo naadira taasoo kale aidisku uu ku dhici kara laakiin boqolkiiba 95 wuxuu ku dhacaa dadka xaaraamta yacni galmada xaaraanka sameeya oo cumrigooda ilaahay ku dedejinayo oo ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira noloshoodii uu ku ihaanaynayo adduunyada soomaalida hadda dembiyada ku yar ayay ka mid ahayd zinadu xilligii hore soomaalidu waa isdhici jirtay yacni waa islayn jirtay dhiigga waa daadin jirtay laakiin jariimadan iyo daahiradan zinadu way ku yaraan jirtay aaday ugu yaraan jirtay laakiin wakhtiyadan dambe markii uu soo kordheen filimadan iyo facebooka iyo waxyaalaha internetka dhallinyaradu ay isweydaarsanayaan oo haweenkii iyo raggii iyo ficil wixii samaynayaba dhallinyaradii ay fiirsanayaan markay ku ta'asureen oo ay ku saamoobeen ficilkii oo kale inay samaynayaan ayaa shaydaankii u qorxiyey taasi marka waxaa ka dhalatay waddankii xanuunkan aidiska inuu nisbaba hadda ku yeesho
percentage inuu ku yeesho oo la yidhaha boqolkiiba Soomaaliya imisa viruskaas ka xambaarsan saasa hadda percentage u yeeshay yani nisbu yeeshay awal lagama aqoon jirinba nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiska ibn Maajah uu warinayo wuxuu ku yiri lam tadhhar al faahishatu fi qawmin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haddii qola faahishada iyo zinadu ay ka daahirto ilaahay wuxuu ku imtixaanaa xanuuno awoowayaashood aysan garanayn awoowayaashii hore xanuuno aan ku dhicin jirin oo weligeed awoowayaashood aysan maqlin ayaa ilaahay ku ibtileeyaa subxaanahu watacaala hadalkii hadda maaragtaa yani in dadkii la xanaanaynayo oo soomaalidii qaybo ka mida xanuunkan intuu ku faafay galmadan xaaraamta boqolkiiba 90 wuxuu ku yimaadaa zinadana uu ku yimaadaa ilaahayna wuxuu ku ibtileeyaa subxaanahu watacaala kuwa xaaraanta iyo intihaakul xurumaad samaynaya ayaa lagu ibtileeyaa waxaa kaloo qayb ka mida waxyaalaha zinada faafinaya waxyaalahan dhalinyaradu ay isku tuurayaan waa xaaraan dhalinyaradu waxyaalaha isku tuurayaan oo facebooka la isugu tuuray ama yani shabakaadka cankabuutiya waxyaalahan loo yaqaano la isugu tuurayo waa qayb zinada ka mid haweeney yani maalan yani wixii samaynaysa ama qaawan haddii qof aad u tuurtid dembigii iyo fidnadii qofkan uu ku fidnoobo adigaa lagu qori isagana waa loo qori goonidiisa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay jala jalaaluhu ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimu fi dunya walaakhira fi dunya walaakhira yuxibuunu ilaahay ka cabiro kuwa jecel faaxishada iyo zinadu inay ku faafto yani iyagii ma aysan zinaysan laakiin way jecel yihiin zinadii inay mujtamaca ku faafto ayay jecel yihiin ina aladiina yuxibuuna أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الدنيا إلهي وكو عقاب آخرنا إلهي وكو عقاب مركا هداد أركتد هويني قاون أما نين قاون أركتد وحيالها فاحشة السمينية لايك هسارد هداد لايك سارتو زندي أتفافس هشير قرين هداد شير قريسة أما لايك أتسارتو زندي أتفافس وعند سوقري آيات إلهي مليه جل جلاله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة kuwa jecel faaxishadu inay faafto leanna waad faafinay mise qof aad u tuuri faaxishadii aad faafinayso marka waxa weeye bahashani waa cuquubo ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira ilaahay uu ka daahirinayo mujtamacii ay ku dhex faafto xaddu zaani almuxsani haadaa midkani xaddu zaani almuxsan qiso yara waxaan rabay runtii kitaabkan dhexdiisa kitaabkan intii aan waday kitaabkan hadda inoo socda intaan waday haweeney markaan casharka ka baxay ayaa galab halkaa ii istaagtay haweeneydii ninaa la socda yani aniga weligay ma isdhehayn soomaalida waxaasoo kalea ka dhex dhacay ninaa la socda haweeneydii ninkan marka waxay leedahay bal sheekhow inuu iga furan yahay iyo in kale bal inoo fiiri sharciga inuu iga furan yahay in kale sharciga inoo fiiri muxuu sameeyaan waxay tiri ninkan markii hore wuxuu fiirsan jiray filimada iyo haweenka iyo ragga qaaqaawan oo faaxishada iyo zinada samaynaya waa ninkaygii intaasaan uga digay waxaan saameyn kugu yeelanaya akhlaaqdaadii bedelaya diintaadii dhaawacaya sharafkaagii dhaawacaya waxaan iska jooji waa iga diiday markii dambe waxay tiri ninkii waa xanuunsaday markuu xanuunsaday gabar isagu uu dhalay ayaan irihi tiri aabbo u qube aabbo u qube waa xanuunsan yahay markii gabadhii aabbo u qube aan iri gabadhii wax ka dayi tiri walciyaadu billaah waa aabbe casharka markaan ka baxay gabadha halkaa ay istaagtay gabadhii wax ka dayi tiri gabadhii ma aysan sheeginay tiri waa iska aamustay waa ka cabsatay mar kale mar afraad ilaa mar shanaad oo sidii oo kale uu ku sameeyey marka bal inaan ka furanahay iyo in kale kan rajo igama jirtee bal sharciga ii fiiriyey tiri marka waxyaalaha cajaa'ibta leh qaraa'ibta ah weligay isma lahayn cumriga Soomaaliya iyo waxaasoo kale ay ka dhacay
waa aabbe gabadhiisii wax ka dayay qofaa ii sheegtana ma dhahayo iyagii isdacweynaya aniga ii yimid toos igu yimid marka waxaa weeye waxyaalahan yacni qalabkan shabakaatu alcankabutiya iyo facebooka iyo waxyaalahan la faafinayo akhlaaqdii mujtamaca way dileen mujtamaca akhlaaqdiisii way dileen way baabi'iyeen